Waxaan sameysanaynaa dabaq cunto ah oo asaga dhan borotiin, kalsiyum, nafaqo, xadiid, iron iyo fiitamiino isugu jira. U fiican dadka leysiyiinta aan jeclayn inay wax karsadaan. U ah nafaqo dadka qaba dhiigkarka, sokorta iyo dadka dhiig la-aantu hayso. Asaga dhan waa nafaqo. haddaba aan fiidiyowgeena gudagalno. Bismillaah, Allahumma salli calaa sayidina Maxamed. Asxaabta, maanta cunto iisiyana waa diyaarsanaynaa. Geed waxtar sare lehna waxaan ka hadlaynaa waxtarkiisa. Waxaan ku hormaraynaa sidaan u diyaarsan lahayn. Waxa koobaad oon haysano waxa weeye waxa loo yaqaano magaciisa boorashka. waxa loo yaqaano asxaabta boorashka, maasha Allah, dad baa aaminsan inay sonkor ku jirto. qaybta aan uga hadlayo waxtarka waxaad ogaan doontaan wax aadna weligiinba arag. marka waxtarkiisa gadaalaan u dhigayaa. asxaabta, waxaan soo qaadanayaa weel aan dabka saarayo. boorash baan ku shubaa. runtii cuntada nafaqo waaye. inaad karisidna kaama rabto. adiga oo aan jikaba gelinin aad quraac samaysan kartaa. dabkaa saaraa. dabka waa ujeedaan waa wax aada u gaaban. tan kaleeto ha ka dul dhaqaaqin walaaq. waxaan rabnaa inuu loon oo soo gaduuto oo udgoon noqdo, waayo boorash oo ciiriin qofna ma liqi karo. marka maasha Allah, saasa u walaaqay. dabka wuu gaaban yahay. hadda waa kaasaa markuu noqdo udgoon, wax yar oo qaada yaro waxaa ku dareysaa qirfaa ah. dabkii waa ka damiyayaa. markaa qirfaha ku daraayo udgoonay ka dhigay. runtii cajab. cuntadan haddaa saan u samaysatid caloosha way ku soconaysaa, nafaqay ku siinaysaa. oo arki doontaan saan u diyaarina. ayada dhan nafaqo cajab ah waaye. marka subxaanallah, hadda waa kan in yaraa soo qaboojinay. xoogna uma qaboojinaysid. weelkaa ku shuban leedaa soo qaadanaysa. asxaabta fiidiyowga lag dhahaya sii sheer gareeya. waa kana hadda waxaasaa gadaal uga jeedaan ma gubanin. waa dhaga waa qirfihii ah hoos ku haray, laakiin bahalkan udgoonkiisa waa kaale iska arag waaye. laakiin dabka ha u dheereen, hana iska gubin. cajab waaye. waxaan ku dareynaa waxaa loo yaqaano malab. malabku waa nafaqo, waxna ma kaa dhimaayo. in yaroo malaba kama badinayno. sidoo kale waxaan ku shubaynaa asxaabta mirahan waxaa loo yaqaanaa seeds. waa miro cajab ah. waxaa ku jira calcium 4 jibaarka midka caanaha laga helaa ku jira. asaga dhan waa nafaqo socota. maskaxda ayuu nafaqeeyaa. waxtarkiisa janalka ayuu ku jiraa. 3 fiidiyo aan uga soo hadlay sida la isugu qurxiyo, timaha loogu qurxiyo. waxaa waaye waa geedkan la yiraahdo tufaax cagaaran. kana waxaa waaye asxaabta, maasha Allah, geedkan wadankeena qani ayuu ku yahay. cambaruud waaye. cambaruud iyo any fruitka nooca haysatid adiga, laakiin tufaaxa wuxuu u fiican yahay cagaarka dadka dhiigkarka sokorta qaba iyo dadka sokorta qaba jab bay ka cuni karaan. waxaan waa timirta asxaabta, nooc qalalan oo aan macaanka ku badnayn aan ka wadaa. laftaa kasoo saaree. timirta waa nafaqo. haddaa qof sokor qaba u sameynaysid timirta kuma dareysid, laakiin haddaa dad oo dhiig la-aan hayso inay isnafaqeeyaan raba u sameynaysid, waa cunto dhammaystiran oo nax ka maqan la arag. adiga oo aan meeshaada fadhiyaa sameysan kartaa. haddaa wiil leysi iyo gabar leysiya tahay gaajana hayso. waxaan waa xabad cambaruuda oo aan soo diiray. maasha Allah, cambaruudka waxtarka ku jira ma malayn kartid. runtii aada u nafaqo u yahay. waxaa kaleeto ku dara. waxaan waa yoogad Greek haddaad joogtid. yoogadkooda wuxuu ku fiican yahay hal xabaa hal daasad haddaa haysatid 2 daasadooda ka sameyn kartaa. yacni koob caanaha ku dareysaa rayb ah, karoor ah, ama caano caadi. wuxuu aada u culus yahay. fiiriya subxaanallah. waxaan ka wadaa yacnaha yoogadka haysatidaa sameysan kartaa. noocan yoogadka haddaa haysatid halka caag 2 caagaa ka sameyn kartaa. yoogadkana khatar waaye. haddaa dheed sameynaysa wuu kuu fiican yahay. maqaarka qof kasta wuu u fiican yahay. maqaarka wuu u fiican yahay. hadda asxaabta qaadadii gadaal ugu hartay waxaan ku daray caano. fiiriya, hal qaadaa ku hartay. wuxuu aada u culus yahay. 2 koob macnaha waxaan dhaqaale ahaan hal koobaa 2 koob ka sameysan kartaa aan ka wadaaye.
any yoogad oo haysatid aa ku darsanaysaa. maasha allah yoogadku aada u fiican yahay. habeenkii markaa seexanaysa miraha seeds iyo yoogad hadaa isku darsatid cajib. waxaa waaye asxaabta waxaa loo yaqaano canabka. ilmaha yaryarka hadaa siinaysid oo waxbaa loo qurqurxiyaa. ilmo cuntadaba aan cunin baa jira, marka u qurqurxi wixii aa aragto fruuda ugu dar. maasha allah waaye runtii saxankan waa saxan dhammaystiran, wax kaa maqan male. in yar oo kaleeto miraha seedsna korka hadaa uga dartid wow cajib waaye. mirahan asxaabta hal qaada ah ku shubay biyo talaagada gashanay 3 beri haday rabto waa ku joogi kartaa. markasta salaatada ku darso, yoogadka ku darso. timaha la marsada oo sida timaha loo marsado sida loo sameeyo si kastoo loo sameeyo waan kasoo hadlayay. waxtarkeeda channelka ku jiraan asxaabta, laakiin waa miro nafaqo iyada dhan waa calcium socda. maasha allah asxaabta ka warama saxankan 1 daqiiqa ku sameysatay. hadaa wiil tahay hadaa gabar tahay waxaa ku jira borotiin, fitamiino, nafaqo waxaa loo yaqaano bir. waa cunto dhammaystiran. laakiin qof sokor qaba hadaa siinaysid waxaad ka qaadaa canabka iyo waxaa loo yaqaano timirta. inta kale okay waaye maasha allah waaye. sidoo kale waxaad soo qaadan kartaa ciishkan dadka dhiigkarka qaba, dadka sokorta qaba allah raxmaanka ha ka caafiyo. aada ugu wanaagsan yahay ciishka madow. adi xataa hadaa dheyd sameynaysid wuu ku wanaagsan yahay. waa ciish nafaqo ah. dadka sokorta qaba waxyaabaha karbohaydraatka ku badan yihiin ka ilaaliya. sokorta, bariidka, baastada waxaas kor u qaada dhiiga iyo sokortaba. asxaabta ani maba haysta fruud, cambaruudna maba aqaan oo yaa ku dhahay sameyso. waxaa mataqaanaan waa begelka waxaa ku jira calcium aada u tiro badan. kana waa qajaar gurigasta wuu yaalaa. xabad qajaaraan soo diiray waan soo jajaray. kana waa tomaatim. 3danba waa haysataa. yaanyo, begel ama se waxaa kasoo qaadaa salar. inay salaato a haysatid. mirihiisiyo seeds waa la geeyay wadankeena hadda waa ka buuxaan maasha allah. aan biyaha kusoo dhignay asaasa ugu sameysanay. cajib waaye runtii. maxaaba ka fiican qajaar, tomaatim iyo begel cagaara. adduunyo nafaqo. hadaa xataa dheyd sameynaysid iyo qof kasta salaatada ayada dhan waa biyo. jirka biyaha u baahiyay ku siineen. nafaqo waaye maasha allah. lafaha waxay kuu dhisaysaa. lafaha maaha murqaha aaday u wanaagsan tahay. dadka oo dheydka sameynaya iscateynaya aaday ugu fiican tahay. hadda saanaa ku haysataa 2 saxan oo cajib ah runtii. saxankan hadaa dhameyn weysid talaagada gashan kartaa. waxba makaa dhimaayo waayo waxba maka dhimeyso. asxaabta hadda waxaan ka hadlaynaa waxtarka uu noo leeyahay geedka loo yaqaano geedkan kasoo sameysanay cuntadan oo loo yaqaano muxuuha magaciisa ani geedka waa ii gambiyey iga raali ahaada asxaabta. boorashka asxaabta maasha allah waaye. horta waxaa idiin sheegaa dadba aaminsan boorashka in laga helo sokornay ku jirto. waxaa idiin sheegayaa 100% hal xabo oo sokora boorashka kuma jirto. yacni 100% eber siira ayuu wuxuu ka yahay sokor. boorashku waa nafaqo. dadka waa wax cuntada oo boqorada inuu yahay baan kuu sheegayaa. muxuu ku yahay idhe qani ayuu wuxuu ku yahay fitamiino iyo waxaa loo yaqaan mineral ama macdan. waxaa ku jira antioxidant aada u xoog badan maasha allah oo cudurada halista ka hortagaya. sidoo kale geedkan wuxuu kaa caawinayaa wuxuu yareeyaa kolestaroolka xun oo dadka kolestaroolka qaba aada ayuu ugu wanaagsan yahay boorashka in loo sameeyo. boorashku wuxuu u fiican yahay dadka sokorta qaba maasha allah. boorashku saaxiib ayuu wuxuu leeyahay oo u wanaagsan yahay dadka wadnuhu u fiican yahay ama wadnaha laga hayo ama yaan laga hayn. maxaa yeelay potassium ayaa ka buuxa. sidaa daraadeed dhiigkarka ayuu hoos u dhigaa. dadka dhiigkarka qaba aada ugu wanaagsan yahay. wadnaha wuu u fiican yahay. dadka kolestaroolka qaba aada ugu wanaagsan yahay. boorashku waa nafaqo. wuxuu u fiican yahay maasha allah. qof kasta oo boorash cuno ama caano ku karso ama saan u karso wuxuu socodsiiyaa caloosha oo wuxuu daawo u yahay dadka calool xanuunka qaba. caloosha fadhida calool xanuun maaha calool fadhiga ayuu la diriiraa. oo hadaa boorash cuntid hadaada maanta gelin beri waa gelay musqusha oo waa taa waa la hubaahaye. miisaanka hoosu u dhigaa oo dadka iscateynaya haday si saxa u cunaan aada u miisaanka hoosu dhigaa. hadaba boorashka wejiga ayuu qurxiyaa oo waxaa laga sameeyaa scrabyo wejiga la marsado. sidoo kaleeta waxyaabaha uu ka kooban yahay hadaan kuu sheego boorashka wuxuu ka kooban yahay
biyo. Sidoo kaleeto socraad xaraariga kuma badna, waxaa ku jira karbohaydraad, waxaa ku jira fibaro. Sidoo kale geedkan vitamin B iyo waxaa ku jira oo kaleeto, waxaa ku jira folic acid baa ku jira, siinki oo maqaarka u fiicana ku jira, bir oo iron oo qof kasta u baahan yahay ku jirta, magnesium, waxaa ku jira potassium, waxaa ku jira acid folic acid baa ku jira oo geedkan hooyada ilmaha nuujinaysa iyo hooyada xaamilka buu u fiican yahay boorashka ah. intaas oo nafaqaa baa ku jirta. sidaa daraadeed waxaa arkaysaa dadka dhakhtarada oo cilmiga leh iyo qof kasta oo bili-aadana maanta boorash buu cunaa, sababtoo ah intaa oo nafaqaa baa ku jirta. dadka badankooda dadka iskorta qabo, qofka dhiigkarka qabo, marka waa wax oo meel kastana laga helo. asxaabta ka faa-iideysta videoga like dhahaya, sii sheer gareeya. haddaad nagu cusub tahayna asxaabta pagekana flow dhahaya, channelkana subscribe dhahaya. inta ayaan jeclistay inaan idinla wadaago. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.